Welcome to Boleo Media and subscribe. mas-uuliyiinta gobolka Jarar iyo maamulada degmooyinka horkacayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jarar ayaa booqday goobaha taariikhiga ah ee santarka Gurdumi oo ka tirsan degmada Awaare ee gobolka Jarar. goobahan oo leh taariikh fog isla markaana ahayd mid ka mid ah saldhigyada uu lahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan goobtan oo ah duleedka santarka Gurdumi loona yaqaano kala kici Gurdumi ayaa waxay ahayd goobo saldhig u ahayd Sayid Maxamed Cabdilla Xasan goobo kala duwan oo ay leedahay santarkan Gurdumi ayaa waxa ka mid ahayd balbiyo dabiici ah oo aad u weyn isla markaana ay uga faa'iideysan jireen xagga cabitaanka dadka iyo waliba fardaha waxaana ka mid ah goob la sheegay inuu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan laftiis halkan oo dharka uu ku jiray waxaana booqashadan oo ahayd mid taariikhi ah isla markaana qaar ka mid ah waxgaradka ku dhaqan santarka Gurdumi oo la hadlay SRTV ayaa waxa ay ka warbixiyeen taariikhaha kala duwan ay goobtan ay leedahay iyagoo qaar ka mid ah waxgaradkan ay halka ku soo bandhigeen suugaantii caanka ah ee uu lahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxaan ahay nin taariikh badan ka haya halkan oo ka soo gaaray aabahay oo ah daraawishta ciidamadii daraawishta ayaa igu tababaray halkan waxay kala ahayd wada baray aniga waxa weeyaan marka halkan hadda aan taaganahay salaxan hadda aad arkaysan waa goobtii uu ku meedin jiray dharka dhayaxna ku taaganahay geedaha oo kale sayidku uu kala lahaa geedka hadda halka yaalla wuxuu ahaa geedka shirarka geedka markuu ku qabto uu ka soo degi jiray kuraastii iyo tarbuunkiiba halkan ka dhisan oo dhayax ka samaysan oo iyagana macnaha idin tusi doono halkan waxa lagu soo dabaaldegi jiray aragtaan fardaha ayaa lagu soo dabaaldegi jiray sayidka marka martiyaha iyo dadka heer caalami soo dhaweynayo waxa jiray oo kale taariikhiyan meeshu waa meel taariikh leh banaanka weyn dhirta banaanad aragtaan geedaha waaweyn waxaan ka hayn dhulkaas waa dhulkii lagu tababari jiray fardaha taariikhiyan fardaha sayidku halkan lagu jarabari jiray jarabar baa jiray halkan waxa ku aasan hadda hooyadii carro oo taqaanan sayid waa carro cali halkan ku aasantay xabaasheedina waa intusaynaa oo ku calaamadaysan waxyaabihii qadiimiga ah ee xilliga lagu calaamadan jiray oo ah qodadkii dhaadheeraha iyo taariikhda hadda saas u dhigan tahay goobtu goob la fabrikeeyo oo macnaha wax laga bedelay maaha waa originalki sidii ay ahayd bay tahay dhagax walba halku yaalay inuu yaalaa waxaan ka mid ahay odayaasha Gurdumi baan ka mid ahay Gurdumi baan ku dhashay gabay buu marka ka tiriyay xinfinin faraskii loo dhan jiray wuxuu yiri xayo faaraxo hadal rag waa loo xutubiyaa maandhow xirgiga qaarkii waa lagu xujoobayaa adna xaashi baad ila timid xaakim soo qoray xabiib baan haajeer kurfiga leeyahay xaasidee nin kale oo xafiilo base adaan xeyrka ka rogiyo waxaan ku xutubiyaana waa xuuradan hay xidigii adduuniya hadaad xooleyga dooni marna anigu kaamaan xistiyaan xaalad leedahay goorteer anoo xaajiya yaana xinif awoodeyn mar hadii suldaan igu xilliyo xididii weydiistay xarigiisa qaba aadmi kala kuma xurmeeyeen buu yiri iyadoo booqashada casuumadan ay fidiyeen maamulka degmada Awaare oo la kaashanaya santarka Gurdumi ayaa shir faqara waxa lagu qabtay bartamaha santarka Gurdumi waxaana ka soo qayb galay waxgaradka culimada diinka odayaasha haweenka iyo dhalinyarada ku dhaqan santarka waxaana halka bulshada kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jarar Mudane Deeq Axmed Jaamac waxaan idinka mahadnaqaynaa sida ballaaran ee quruxda badan aad u soo dhaweyseen annaga iyo waftigeeyagan ka socday mas'uuliyiinta kala duwan ee degmooyinka gobolka Jarar aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta ballaaran aad u sameyseen halkan maanta waxa idinla jooga mas'uuliyiintii ugu sarreysay gobolka Jarar hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay degmooyinkaba waa fursad qaali ah runtii inaan maanta bulshada Gurdumi mas'uuliyiin inta leeg oo ka socota gobolka ay waqti la qaataan waa fursad taariikhi ah waxaan leenahay fursadda aad nasiibka u hesheen aad iyo aad baan mataqaanaa idinkaga mahad celinaynaa sida fiican aad noo soo dhaweyseen waxaananu ku rajaynaynaa mustaqbalka haddii aad halkaa kasii wadaan dadaalkiina aad ugu jirtaan dhinaca horumarka inaad horumar kale oo ballaaran oo inta kasii ballaaran aad gaari doontaan yaan aad iyo aad mataqaanaa u rajaynaynaa
iyadoo dhammaan mas'uuliyiinta booqashada ku timid ee heer gobol iyo degmooyinka gobolka Jarar ayaa aad waxa u soo jiitay istaraatiiji ahaan goobtan santarka Gurdumi oo ah mid ay ka muuqato aataar ama taariikh fog. Axmed Kaabe, SRTV, santarka Gurdumi.